madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Garan ayaa qadi sharaf u sameeyay qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana kala hadlay arimaha soo xulisay dhabaanada baarlamaanka labaad iyo qaabka loo sameeyay guddiga farsamada cusub Malaaq Jarow Yacquub ayaa ka waramay kulankan maanta ay qaateen iyaga iyo madaxweynaha alxamdulillah meel faylal isdadhiki insha Allah ta'ala maan barluku balaaw isabtagan ka dambeeyay in odayaalkii samanaara oo leefuro guddiga doorashooyina tababaryoona leefuro maalinta sabtaga ka hortaan oo bilaa tuman iyo nashan atalku balaaw ila bilaas isbuuc kaamilka tababarkaas la qaaday kadibna reer koonfur galbeed ma sheegana xulustii baarlamaanka reer koonfur galbeed in odayaalka dhaqanka bilaawayaan sidoo ka dhaqsi badan haddana jamaacadda baan iska naqdo doon intaas hadalkaana ka saabsanay may kale meel xambaliyo diiran ku dhikaan ku diraana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka guuleysay inuu soo xulo baarlamaankii guddiga farsamada inuu soo xulo oo odayaalka dhaqankana si toos maanta aan wada ansixiyeen in la go'aansadeen soo jeedintii madaxweynaha iyo magacaawistay oo wada jira 40 iyo koow odayaha ku qayb galay odayaasha dhaqankana ma hayaan 44 oday sida oday oo lamana xanuunsan odayna safarno ka bonqonano maqnay inta la koona roogni soo anka jarna khilaaf anka jarna yalla ka ogolay guddigaasna mayba waa guddiga ansaha oo muddo koonfur galbeedna مثلا إني أردسان سيدا ساليس كلا جول سيدا ما سنتين